in signal aad sugtid misna signal lagu siiyo waa lugooyada tan ugu weyn ee qofka lagu curyaaminayo. haddaba si aad iskugu filnaatid oo suuqani adiga aysan cidna kaaga turjumin, waxaa muhiim ah inaad adiga aad focus ka saartid baratid. maybe inaad arday tahay, jaamacad dhigatid, iskuul dhigatid, inaad mashquulsan tahay laga yaabe. taasi macnaheedu maahan in aad signalna aad qaadatid. xilliga aad fursad u heshid suuqani imaaw. haddii arday aad tahay waqti badan aadan u helin suuqani, xolahaaga hantidaada cidna mas-uul ha uga dhiganin. suuqa forex waa suuq maanta qof walba oo fursad haya wax ka qabsan kara. ogsoonow haddii fursaddu ay aad kugu yar tahay oo aadan waqti u helin suuqani, waqti waxaa dhici doonta aad time u haysid alla idinkii xilligaas imaaw. haddaba waa ay kooban tahay inaad baratid. time yar bay kugu qaadanaysaa suuqani, kama cararayo ee lacagtaadii meelna cidlaha ku lumin. in signal aad qof ka sugtid, in trade aad qof ka sugtid, in aad weli waxaa tahay qof gacanta lagu hayo. isku day inaad xorowdi marka. suuqani qof walba waxa uu soo galay waxay tahay waa inuu xor noqdaa. laakiin maxaa xornimo ah haddaad weli aad sugaysid inaad qof trade soo analyze gareeyay misana kuu soo diray kadibna ku dhahay halkaasi ka qaado oo aadan ka warhayn? waa bad weyn misana lagu dhex daayay hantidaadii aadan meelay taalay iyo meel kale aadan ka warhayn. suuqa forex waa suuq aad iyo aad u sahlan. waa haddii aad u soo xeedxeedatid, waa haddii ay dhabkaa tahay inaad baratid. waad baran kartaa. bahda bir laba FX asxaabteena qaaliga mar walba joogtaan. guuleysta.